أصحابي مليون قليل ويا الله هاي أبان ونحسن هاي مركا وحاول أي الملك البادين الله إلهي وين سوماليات حاسكيس مليون مانكا نقول ولا شينا قليل بيجليسا ما شاء الله مليون وهذا شيء ما هيدا شيء قبل saddexdan walaalaha u jeedaan aragga ay la yihiin laakiin arrin mucjiso Hargeysa ka dhacday ayaa ah kadib markii imtixaan la qabtay iskuulkooda inay u galeen kaalmaha number 1 number 2 iyo number 3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي قالك waxaan idin rajaynayaa adinku caafimaad qabo maalintii inta muuqaalka si nabada aad ku daaw doontaan ugu reeb update la soo subscribe soo kale muuqaalkan la galay waa maasantiin waayahay sida aad muuqaalka sar ku saartay muuqaalkan waa laba qodobka waa hambalyo oo u dayna walaalkeen Sharma Boy maadaama qaliin dheer iyo dhibaato dheer ay martay walaasha milyuumaan kadib oo alla ku guuleeyay in gabar oo alla keeno Sharma Boy wuxuu taagay maanta gabar ayaa haysta Ilaahay u barakeeyo qodobka labaad ayaa ah dhacdo la yaab leh ayaa ka dhacday magaalada Hargeysa taasi oo ku tusinayso in maanta la joogo dadka waxbarashada aad u xiiseynayeen dadka naafada saddex walaalo ah ayaa imtixaan la qabtay oo dugsiga loo qabtay iskuulka waxay galeen kaalmaha number 1 number 2 number 3 sidoo kale saddexdooda waa walaalo saddexdoodana aragga ay la yihiin oo wax ma arkayaan haddaba waxa lagu magac daray marka walaalihii guuleystay qisadooda oo aad u dheer waa daawadoontii muuqaal kheyr dambe ayaa martidona waayahay bal qodobkooda ugu dagalno ninkii Sharma Boy ahaa ayaa mataqaana TikTok aad u haysto kadib markii milyuumaanka ee silic rafaad ay gashay kadib qalin lagu sameeyay ay guuleysatay horta hooyo marba daad tahay kulli dhibaato waa maraysa marka qaar marka dheelaysid walaasha milyuumaanka qalin ay gashay rafaad dhibaato martay xitaa halis ay gashay before intay sadalin waa kan Sharma Boy oo leh milyuumaanka qalin ay gashay isoo duceeyo أصحابي مليون قليل ويا الله هاي أبان ونحسن هاي مركا وحاول أي الملك البادين الله إلهي نوصف يا حاول سود عدينا إن شاء الله saacado kadib qalinka lagu sameeyay waa lagu guuleystay gabar ayuu Ilaahay ka keenay waa kan marka isagoo faraxsan oo loo dhalay ما شاء الله مليون وهذا شيء ما هيدا شيء قبل آديات همبليو adduunka saaska ah yaan laba muuqaal different marna waa idoo qalin lagu sameeyay oo aad iyo aad u naxsan ka Sharma Boy marna waa isagoo loo dhalay marka qof kasta waxa dhilaa hooyada xushmeey dhibaatada hooyo ay ka soo martay u jeedin oo milyuumaanka waa aragteen sida qalinka ay u martay shaleeto aad iyo aad sakaraad ay gaartay xataa heer ay marto dhiig badan ka baxay marka alxamdulillah laakiin ugu dambeey Ilaahay waa ka nabad keenay Sharma Boy marka waxa ku leeyahay saaxiibkaygu hambalyo Ilaahay gabadhaas ka dhigay dadkeeda diinteeda iyo dadkeeda waa anfacda hadda Sharma Boy wuxuu taagan yahay laba carruur haysta ha hore wiil lagu haayay iminkana waa gabar odayga dhanka raabkan waa naga waalaya dhanka kalena wuxuu leeyahay aabaa waxa waayahay halkaas uu bixinaa Sharma Boy qodobkiisa hambaliyaan leenahay team Sharma Boy dhamaantiiba comment ugu soo hambaliyay ninka Sharma Boy maadaama loo dhalay qodobka labaad ee ugu dagalno qodobkan ciwaankiisa waa walaalihii guuleystay saddexdan walaalaha u jeedaan dhamaantood bu aragga ay leeyihiin waa saddex walaalo isku xigaan daadi koowaad daadi labaad daadi saddexaad imtixaanka lagu qabtay iskuulka ay dhiganayeen Hargeysa ku yaal waxa ay galeen kaalmaha 1 2 3 ayay galeen dhamaantoodna aragga ay leeyihiin ku darso cilmi baaris la sameeyay waxa lagu xaqiijiyay sanadkan in dadka aragga la inay yihiin dadka waxbarashada ugu horeeya walaalahan hadaba waxay leeyihiin araggeen waxa ku iloobi karnaa cilmiga aabaranay Ilaahay u siyaadiyo Ilaahayna araggooda ha u soo celi kulli araggaaga wax kaga fiican ma laha imtixaanka la qabtay macallimiintu ka yaabsadeen number 1 number 2 number 3 la kala galay waxa la daawatay qisadooda aad u dheer oo aad iyo aad mutaqaan badan ay ka faa'iido doontid qoobka soo show dhameyso walaalahan waxa kale qaybta commentiga Ilaahay dartiisna ugu soo duceeyay Ilaahay araggooda ugu soo celiyo xamda nimco iyo cabdikariin waa saddex walaala oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku galaday in uu xiftigoodu wanaagsan yahay inkastoo ay aragga naafa ka yihiin haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meelo kale ayuu ugu bedelay markiiska Iblubaas qaybtiisa Maxamed Mooge ayay dhigtaan saddexduba waxa cajiiba in ay kala galeen saddexda kaalmood ee ugu sareeya labada fasal oo ay dhigtaan xamda marka hore soo dhaw waan dhawahay walaalkay xasan Salebaan Harun Xasan Kaleed waan ku faraxsanahay wareyskan qiimaha badan ee maanta nala yeelan doonto bal ka waran xamda aad u kaalintee gashay waad mahadsan tahay walaalo waxaan galay anigu kaalinta labaad ee galaaska awalka marka bal ka waran dareenkaaga
alxamdulilah horta mahadoo dhan ilaahay bay ii u sugnaatay. mahadda kale waxaa le maamulka iyo macalimiinta faraca maxamed mooge maxadka ibnu baas. walahi dareenkayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in dee waxaan sanado badan aan ku hamiyay inay maanta ii rumoobaan oon dee ardayda maxadkana ka mid ahay. alxamdulilah aan dee kaalmaha sare imtixaankana aan galay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. xamday maxaad halkan ka barataan? waxaan ka baranaa shareecada islaamka hadday tahay fiqiga iyo hadday tahay axaadiistii rasuulka iyo hadday tahay siirada. adigu qaybaha kala duwanaa shareecada islaamka ayaanu ka baranaa iyo luuqadda carabiga sidoo kale. waxaa lay sheegay inaad markiina horena saddexdiinuba aad qur-aanka xifdisan tihiin, arrintaasi soo ma jirto? alxamdulilah walaa horta 2021 ayaanu qur-aanka dhammaynay. waananu xifdisanahay alxamdulilah inkastoonan hadda odhan karin 30 korkaan ka haynaa, haddana alxamdulilah in nagu filan waanu xifdisanahay. waan rajeynayaan sii xifdiyi doono, haddana kamaanaan harin oo markii labaad ayaanu kusoo celinoon hadda ku dhex jirnaa. xamday, inaad kaalinta labaad u gasho galaaska badan ee weliba dadka aragga qabaa ay dhigtaan, siday kugu suurto gashay baad leedahay? horta waxay ugu suurto gashay marka ugu horeysa fadliga ilaahay, waayo rabbi subxaanahu watacaala markii araggayga iga qaaday wuxuu igu bedelay maskax fiican iyo caqli iyo waxaan ka wadaayay qalbi fiican. sidaas awgeed waxay ii fududaatay inaan kitaabadaas la qaato oo dhan oo ka koobnaa markaas 6 kitaab inaan dhakada ka wada qabto, su-aal kastoo lay weydiiyana aan sidii saxda ahayd uga jawaabo. sidaas awgeed ayaan ku galay kaalinta labaad. marka su-aalaha guudkaa laydinka weydiiyaa idinka? horta sidaan wada ognahay waxaa jirta far la idhaahda bareel. fartaasna dee lagama helayo meel kasta oo ka mid ah dalkeena amba magaaladeena Hargeysa. sidaa awgeed maxadku kuma baxo fartayada mana laga helayo. saas darteed waxaan ardayda markaan la qaadana casharada imtixaanka galaas gaara annaga iyo macalinka nala geeya, kadibna su-aalaha si toos u noo weydiiya, annaguna si toos aan uga jawaabnaa. wixii aan khaladnana khalad baa naloo qoraa, wixii aan saxnana saxun baa naloo qoraa. marka casharada tusaale ahaan markuu macalinkii uu dhigo ee uu sharaxaad ka bixiyo, ma isla markaas sidee xifdigooda ku suurtagalaa? waad mahadsantahay walaalo. horta marka ugu horeysa ardaydaanu la qaadanaa oon la dhageysanaa wixii su-aalaha uu macalinkuna weydiinayna halkaasaan kaga jawaabnaa, iyo hadduu yahay casharku mid si toosa looga baxayaba. kadib hadhow markaan guriga tagno waxaa jira wiil walaalkayahoo naga yar oo isla maxadka nala dhigta isaguna oo inanka la dhigta. inankaas baa naga caawiya xifdinta casharada oo guriga noogu soo mariyo, guriga nagu soo xifdisiiya. dabcan ardaydaanu isku galaaska nahayna markaanu galaaska la joogno iyo hadday tahay telefoonka markaan kala soo hadalaba way naga caawiyaan oo waxay noo fududayaan sidaanu casharada u xifdiyi lahayn, khaasatan imtixaamaadku marka ay jiraan oo kale. yoolkaaga ama hadafkaaga ugu weynaad leedahay muxuu yahay? yoolkayga iyo hadafkayga ugu weyni wuxuu yahay inaan meel sare ka gaadho barashada diinta islaamka. mana rabo inaan halkan kaga hadho insha allah. waxaan rajeynayaa insha allah haddii ilaahay ii suurto geliyo inaan jaamacadaha dalka aan ka heli doono oo ii ogolaan doonaan sida maxadka ibnu baas inaan ardayda la qaato fasalka aan rabo anigu inaan maxay tolay markaas aan barto insha allah. sidoo kale waxa la sheegay inaad dugsiyadan caadiga ee dawladdan aad dhigataan soo maaha? walaal waxaa jira iskuul la yidhaahdo Hargeysa Bareel Center oo ku jira qayb ka mid ah iskuulka Xuseen Giire amba Sheekh Madar. iskuulkaas oo dad rag naafaka ay dhigtaan oo dhowr galaas oo iskuulka laga siiyay. iskuulkaasna waan dhiganaa alxamdulilah hadda aad baanu nahay. xamday, goorma ayaa arrintan idinku timi? wax la sheegay inaydaan ku dhalan saddexdiinuba? walaal waa mahadsantahay. horta haddaan shakhsiyan iska hadlo, aniga waqtiga markaan taariikhaha iyo sidii ay waalidkaygu ii sheegaan aan qiyaaso, waqti ku dhow 2006 anigoo ilmo yaro caruura ayaa maxay igu timin dhalaantu. markii aan araggayga waayay muddo xogaa dhakhaatiir baa la igu wadwaday. marka kadibna maxay ahayd waxaan aqoonsaday inay tahay wax noloshayda ka mid ah laga qadaray, waanaan ku qancay alxamdulilah. xamday, caqabadaha ugu waaweyn ee ida haysta maxaa ka mid ah? walaal mahadsantahay xasan galaadho. horta kulli noloshan oo dhan baa iska caqabadaan, adduunkana ma jiraan wax bilaa caqabadi. laakiin qofku markuu maaragtay yahay qof laxaadkiisa kala dhimay waxyaalo badan buu kulay tabanaya. laakiin falilahi alxamdu ilaahay wuxuu nagu arsaaqay inaan wax kastoon qalbiga ka jeclaysano markaan rabbi subxaanahu watacaala isku xidhnayno baranno inuu si maxay ahayd tolay fudud uu nagu siiyo noo fududeeyo wadadaanu mari lahayn oo kale. marka alxamdulilahi rabbil caalamiin kulley casharada oo kale marka la qaybayo kale
maadaama anad adigu intaad kitaabkii la soo baxda dee aanad halkaa ku ciil baxahayn taasoo kale kulley waa iska caqabado de waxa laga yaabaa qof baad ku xidhanta qofkii wuu xanuunsan karaa waad waayi kartaa de kolley ay time qofkii maaha qof kula jooga marka kolley taasaa horta ugu muhiimsan caqabaduna waa iska badan yihiin laakiin alxamdulilah iyo idin soo kaxeeyo oo kale tusaale ahaan maxadka idin keena waa si fiican walaalo horta waan kala duwannahay aniyo walaalkay waxaan labadeeda hablood waxaan dhiganaa bacdal casarka walaalkana wuxuu dhigtaa bacdal maqribka marka waxaa jira oo isaga soo raaca wiil kaloo naga yaroon walaalanahay oo isku fasal yihiin ayaa isi soo raacan cabdikariin labadeeda habloodna gaari baa noo kiraysan gaarigaasaa guriga hortiisa naga soo qaada nana keena maxadka hortiisa intaa dee gaariga halkuu nagu dejiyey intaa u dhaxaysana annagaa iska soo socono rabbi wuxuu nagu arsaaqay lugta iyadoo halkay 2 jeer martaba waan la qabsanaa maalinta saddexaad uma baahano in nalaga caawiyaanba gaariga nalaga soo kaxeeyo marta qanaacadayda wax sidan aan anigu ku qanacsanahay waxaan ahay shaqsiga keliya weligeed intay meel fadhiisatay amba ilaahay u sujuuday aan odhan ilaaha waragaygii soo celi balse waxaan dhahday ilaaha waragayga janno igu bedel rasuulku wuxuu noo sheegay labada xabiibatayn oo ah aragga sallallahu alayhi wasallam qofka laga qaaday ku sabra abaalkiisa amba jasihiisu janno inay tahay anna waxaan rabaa jannadaas inaan helo waana ku qanacsanahay 100% waxaanan rajeynayaa insha Allah anigoo araggaygu sidan yahay inaan culimada maxadkan loogu magac daray sheekheena ibnu baas oo kale aan noqon doono dee caalim weyn oo diinta fidisa insha Allah annaguna waxaan ku rajeynaynaa walaal guul walaalo ood mahadsan tahay aad baan ugu faraxsanahay waraysigaaga kolley de wax baan ku dari karaa anigu waxaan ahay dee ardayda kaalinta koowaad baan u galay galaaskayaga aad baan ugu faraxsanahay inaan anigoo de qof aragga naafa ka ah arday iga duwan inaan kaalinta koowaad u galo wax baan orankaa dee waana inuu fadliga ilaahay iyo dadaalkaygun bay ahayd marka aad baan ugu faraxsanahay ardaydoo kale bal siday idinla dhaqantaa marka ardaydu walaal si fiican alxamdulilah waan sila qabsanay markaa waanu kala faa'iidaysanaa casharada waxay maaragtay ayagu ay marka ay fahmi waayaan waxaan anagu fahmi weynana way naga caawiyaan marka si wanaagsan baan isula haysanaa dhinaca xifdiga markaad qiyaastaan bal ka waran xifdigiina ayaa aada u sarreeya sida lay sheegay haa walaal alxamdulilah qofku kole markuu aragga waayo ilaahay meelo kaloo fara badan buu maaragtay u gelinayaa marka xifdigayagu dee waaba taanu maaragtay dee ku gelayna imtixaamadaynu dee ardayda ugu gelayna kaalmaha sare allah ayaa mahad leh horta waan ku faraxsanahay inaan galaaskayga kaalinta saddexaad u galo inkastoo aan jeclay inaan koobaad gala haddana ilaahay baan ii suurtagelin intaas waan ku faraxsanahay qofku niyow naafanimadeena inta badan hadduu naafo yahay dadku waxay u maleeyaan inaanu waxba baran karin khaasatan haddaad aragga naafo ka tahayna dadku waaba kula sii yaabayaan qofku hadduu aragga naafo ka yahay maskaxda qofku waxay u shaqaynaysaa tay markuu naafada aanu hayn intay shaqaynaysa inka badan xifdigaagu wax kasta uu kuu fududaanaya xifdigiisu imanka waxaan xasuustaa imika de moobilo waaweyn baa la wada sitaaye berigii hore waxaan sidan jiray mobil yaroo dan ka hadala waxaan xasuustaa 200 oo lambar in ku dhow ayaan kurka ka hayn jiray oon xifdisanaan jiray marka mar walba qofku wuxuu isticmaalaya waxa weeye maskaxdaydaanu isticmaalnay aanu wax ku xifdinay horumarkaan ku soo gaadhnay rajeynayaan insha Allah mid ka sii badan intan inaanu gaadhno insha Allah dikrinow goorma ayaad araggaaga weydi araggayga waxaan waayay 2016 waxaan u malaynayaa inay bishii 10aad ilaa 11aad meelahaas ahayd aad uma xasuusto sababtoo miyi baan joogay aan geel jiraan ahaan jiray marka ma xasuusto taariikhdu tay ahayd laakiin waxaan xasuustaa inay 2016 ahayd ilaa bishii 10aad meelahaas dhakhaatiirta markaad tusteen maadaama aydaan saddexdiinuba ku dhalan maxaa la yidhi dhakhaatiir badan baanu maray waxaa naloo sheegay inay saddexdeedaba biyo nagu furmeen waxbana aan laga qaban karin oo ay xididadaa dambaa dhintay bay yidhaahdeen marka waxba lagama qaban karinay yidhaahdeen alxamdulilah anaguna waa iskaga samiray oo nimco ilaahay tahay waa iska rumaysanay waanana ku samiray ilaahayna arsaaqad badan buu nagu siiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin social media oo kale ama aaladaha wax ma isticmaashaan
dabcan haa waa wada isticmaalaa aaladaha la isticmaalo dhammaan anaguna waa isticmaalaa waxaanu kaga duwanay dadka kale ma jirto ee naafada ahayn waxa facebookii youtubekii tiktok hadday noqoto dhammaan waa wada isticmaalaa whatsappkii waxaas waa wada isticmaalaa dhammaan xagga qoritaanka oo kale ka waran qoritaanka waxaa jira program yaroo cod ah oo moobiladu ay leeyihiin badankoodu way leeyihiin markaa codkaasaan ku isticmaalaa wax kasta oo wal uu ku akhriyaya kombiyuutarada xataa waa lagu shubaa markaa codkaasaan ku isticmaalaa markaa codkaasaan noo akhriya wax kasta oo ku saabsan hadday qoraal noqoto hadday cod noqoto iyo wixii kale la halmaalaba barnaamijyada lagu isticmaalo hamigaagu bal waran hamigaygu wallahi wuu sarreeyaa waxaan jecelahay inaan jaamacad galo kadibna aan kasii sarreeyo oo magaranaysaa kolba wixii aan kororsan karo aan kororsado dee qof maanta bili aadana adduunka jooga intuu hami leeyahay mid la mid aan leeyahay waxaan rajeynaya ilaahay ii rumeeyo insha allah culimada inaan ka mid noqdaan jecela insha allah caalim weyn noqoto insha allah allahi suurtageliya saasaan jecela maxaad jeceshaa inaad ku takhaqusto culumta diiniga way fara badan tahay ani ahaan waxaan jeclahay haddana aan ku fiicanahay fiqiga saasaan isla insha allah cabdikariim walaa ilaahay subxaana watacaala ha ku rumeeyo aad mahadsantahay walaalo ilaahay jazaaigaaga ha ta qanaacada anigu waxaan aaminsanahay hadda inaan ku faraxsanahay tay noloshaydii hore iyo tan imika haddaan in yar eego tanna hadda aniga ii fiican sababtoo ah imakaan wax bartay haddaan aqoon yeeshay aqoon maan lahayn marka ilaahay mar walba waxaan uga mahad celiyaa intuu araggayga iga qaaday inuu nolol tayo aan markaa ku jiray ka qurux badan oo ka nimco badan inuu iigu bedelay marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle dad soomaaliduna waxaa tidhahdaa ilaahay markuu il kaa awdo il buu kuu banneeyaa marka anigu waxaabaan aaminsanahay inay noloshan ii fiicnayd ilaahay baana sida khayrle mar walba isagaa inooga aqoon badan marka anigu waxaan aaminsanahay inay tan noloshaydii hore ay iga qurux badnayd oo ilaahay subxaana watacaala wuu ii gartay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin marka cabdikariinow markii hore miyi baad joogtay yacni waxbarasho kumay suurtagal lahayn miya haa miyi baan joogay nin geelaasun iska raacdaan ahaa cibaado maan aqoonin cilmina dee ma iskabada hadalkiisa de meel waxbarashana miyigu inta badan way naqaanaayo maba aha inkastoo imakaad moodeen horumar lasoo yar wada gaadhay laakiin xilligaa may ahayn marka hadda markaan 2016 aragga beelay magaaladan imi first one quraankan ka bilaabay quraanka markaan bilaabay haddana iskuulkan tagay maxadka quraanka anoo wadan iskuulkana tagay iskuulkayga baan watay maxadkana hadda markaan quraankii dhameeyaan ku soo biiray alxamdulillah anoo imtixaankii aidka u fadhiyay iskuulka ayaan imtixaankii maxadkana ku jiray 2022 imtixaankii marka laga soo gudbay 2023 bilowgiis marka alxamdulillah sidana baan aniga fiicneed baan aaminsanahay ilaahay baana ku mahadsan saddexda arday ee walaalaha ah waa nimco caawiye iyo xamda caawiye iyo cabdikariim caawiye saddexda ardayba markaa aragga markaa naafa ay ka yihiin maxadka ibnu baas qeybta xaafadda maxamed mooge waxay ku soo biireen 2022 bishii 9aad dhexdeeda ayay ku soo biireen muddada intaa leeg ay maxadka wadeen waxbarashadiisa way aad bay u joogteynayeen xagga xuduurka iyo imaatiga saddexda arday juhdiga iyo dadaalka marka ay bixinayeen maxadku imtixaanaadka intaa uu galayay mar kastaba kaalmaha u horeeya kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ay markaa galayeen imtixaankii marka u dambeeyay teeramka marka aynu ka soo baxnay waxay markaa saddexda ardayba ay ku guuleysteen saddexda kaalmood ee markaa ugu sareeya kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ardaydaasi juhdiga iyo dadaalka marka ay bixinayaan casharka marka loo mariyo hal mar macalinka uu akhriyo ilqeeyu jeediyo iyaga ayaa markaa soo xifdinaya casharkiina waxay ku sitaan maskax ahaan iyaga oo markaa xifdisan oo si wanaagsan markaa u xifdisan ayay maalinkii dambe markaa la soo noqonayaan say cashar cusub haddana halkaa kasii qaataan juhdiga iyo dadaalka marka ay bixinayaan ardaydaasi iyagoo haddana aragga naafa ka ah waxa ay markaa ka horumareen ardaydii kale ee
fasalka markaa la fadhiday ee iyagu markaa buugga iyo qalinkaba markaa haystay ee markaa isku arkayay ilaahay subxaanahu watacaala waa wax loogu mahadnaqo allah subxaanahu watacaala sida markaa walaalahaas uu ugu bedelay wax ka khayr badan oo markaa cilmigii inay markaa kasbadeen oo ay markaa barteen ah waxaynu rajaynaynaa insha allah idanka ilaahay saddexdaa arday calaamatu ibnu baas raxmatullaahi calayhi sheekh cabdicasiis ibnu baas waxa uu ahaa aragga naafa ayuu ka ahaa isagoo oo 19 jir ah ayuu markaa aragga beelay waxaynu rajaynaynaa insha allah in ay saddexdaa ardayna markaa calaamatu ibnu baas oo kale sida markaa cilmigiisa aynu wala dheregsanay inay markaa la mid markaa noqdaan taasina ilaahay subxaanahu watacaala markaa u weydiinaynaa xasan walaal waad mahadsan tahay inaad maxadkayga noogu timaadoodna soo booqatidna waan kaaga mahad celinaynaa waxaan halkan uga mahad celinayaa ilaahay ka soko horta markasta allah mahad leh mahadda ilaahayna mar quraata maaha mid dhammaanaysa inta ka soko waxaan halkan uga mahad celinayaa sheekh faysal oo ah maamulaha guud ee macaayidda ibnu baas oo qofkii ugu horeeyay shaqsigii ugu horeeyay ahaa shaqsigii ugu horeeyayna aqbalay inaynu maxadkan dad dhigata ka mid noqono ahaayaan halkan uga mahad celinaya waxaa kaloo isagana u mahad celinaya sheekheena weyne sheekh axmed iid oo noo suurtageliyey inaanu maxay heeday qayb ka noqono qayb ka qaatay sidii aanu maxadkan u dhigan lahayn waxaan sidoo kale ugu dambeynta u mahad celinayaa oo sida uu noola dhaqmay isagoon dad hore oo indhala amba arday daarga naafaka oo wax ka bartay maxadka hore warag maamulaha faraca degmada maxamed mooge sheekh khadar oo garab weyn run ahaantiina siiyey ilaa iyo waqtigan oo ardayda maxadka ka mid